gaalkiyo dadkaygahow guntadoo ka kaca gacmaha isqabsada waad guulaysan doontaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka ugu horeysa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan bahweynta beesha Gabooye meel kasta ay joogaan. maanta waxaa i haysa dareen qiiro leh, dareenkaas oo igu kalifay markaa inaan ka hadlo xaggan. marka ugu horeysa waxaan doonayaa horta su'aal inaan weydiiyo dhammaan madaxda beesha Gabooye, cid kasta ahaada Mandhibaan, Tumaal, Anaas, Muus, Dheriye, Hawle, Wardheere, intaba ahaadaan. horta waxaad ogaataan haybad waxaad ku leedahay dadkaaga, karaamo iyo sumcad waxaad ku dhex leedahay waa ummadaada. hogaamiye kasta cidda kor u soo qaadi karta sharaftiisa sumcadiisa naxwi waa dadkiisa weeyaan. nin kastaba dadkiisa ayaa kor u soo qaada oo sharaftiisa iyo sumcadiisa dhisa. qofkii ku ciyaara ummadiisa ama ka shaqeeya tafaraaruq inuu ummadiisa kala geeyana run ahaantii bulshada kale ma cisayso. qof kastana waxa lagu ciseeyaa oo lagu sharfaa sida ay ummadiisu yihiin. haddii ummadiisu ay jecel yihiin ummadda kale way jeclaadaan. haddaba hoggaankeena maxaa u diiday in ay bulshadeena isku keenaan ila gacmo wada jir bay ku gooyaanay qabiilka loo kala baxay awalba waxaa samay jirine ma kuraas baa keenay mise waxaa keenay doonaya markaa inaan si gaara u iftiimiyo. horta hoggaan waa maxay? hoggaan maxaa lagu doortaa? bulshada se maxaa kor u qaada sharaftooda iyo sumcaddooda? maxaase hoos u dhiga? horta hoggaamiyuhu waa ka kaliyaata ee bulshada kor u soo qaada sumcaddooda iyo sharaftooda. hoggaamiyuhu hadduu ka shaqeeyo inuu bulshadiisa uu isku xidh ka sameeyo oo uu bulshadiisa uu isku xidho oo uu ka samaysto kalgacal oo bulshadooda ama bulshadiisa uu isjeclaysiiyo, bulshadaas waxay noqdaan qaar awood loo xoog leh. laakiinse hoggaamiyuhu haddii uu ka shaqeeyo tafaraaruq iyo inuu bulshadiisa kala geeyo, kaasi waa hoggaamiyaha u horseeda guuldarro had iyo jeer ku timaada beeshiisa. haddaba waxaan u sheegayaa dhammaan hoggaanka waar sumcad iyo karaamo haddaad u baahan tihiin had iyo jeer inaad heshaan waa inaad ka shaqaysaan isku xidhka bulshadiina. haddiise aad doonaysaan inaad baabaadaan oo sumcaddiina iyo magaciina uu baaba'o, isku daya markaa inaad bulshadiina kala geysaan sida imika oo kale. waxaad ogaataa gacmo wadajir bay wax ku gooyaan. wadajir haddaynu waxba ku goy weyno sumcad iyo karaamo ma helayno. caruurteennuna weligood iyo allahood run ahaantii sumcaddooda sharaftooda way hoos bay noqonaysaa. marka waxaan leeyahay insha allah hoggaankana waxaan leeyahay dhammaantoodba haddii aad ka soo bixi weydaan waajibaadka la idin saaray si dhaqsa ayaan insha allah idinka tashanaynaa insha allah. waxaan insha allah idin ballan qaadaynaa in aanu insha allah si dhaqsa idin bedelno oo aanu meesha keenno hoggaan lagu kalsoon yahay, kuwaasoo had iyo jeer u taagan inay bulshada isu keenaan. anagu maanta diyaar ma nihin qaarna hoggaanna kala qadqaada oo noo kala saara jilbo kala duwan. waxaanu diyaar u nahay in aanu isku xir samayno oo aanu kor u shaqaano sharafteeda sumcaddeeda. marka waxaan leeyahay hoggaanka sare imika laga bilaabo jaanis baad haysataan, sidan aad ku socotaan wax ka bedela. xidid iyo xigaal baa leeyahay, gacal iyo sokeeyaa leeyahay. haddii aad sidaa aad dhaami weydaan insha allah waxaan idin ballan qaadaynaa in aanu si dhaqsa ah xilka idinka xayuubino. maxaa yeelay bulshada ayaad xilka u haysaan. bulshada haddii aad ka shaqayn weydaan isku xidhkeeda insha allah gacmo wadajir bay wax ku gooyaane annaga insha allah meesha idinka qaadayna insha allah. ka soo baxa xilkiina, xilka annaga idin saaranay.